السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أخيرت دمانتين من البادوني ذا كجوبتان ومركلة إيانيجي يوصول لابتي مركو هروح إذن ليه هاي جمعة مبارك جمعة كريم من البادوني ذا كجوبتان إن شاء الله تعالى عاو محنكها الله يا عاو وح عصب كما الله وحنكها الله وحي حالة عنكسوها الله قيبتي سلوات إن عاو ويلشة تيك توك ويلشة كجرو dhaqan kuwada dhaqanka xun dhaqan xumadooda baan caaw ka soo hadlayaa insha Allah taala group kala lahayaa marka caaw waxa ugu horeeyo aan rabaa inaan soo qabto qof Soomaali ah oo wax aad u xun ka hadlayo ilaahay kolleebo dadka iska dibadin yihiin dadka Soomaalida dhaqan xumo badanna waa lagu hayaa marka way la daawanaysaan intaanan guda gelin waxa idin ka codsanayaa fadlan qofka ku cusub channelkan subscribe soo saar like saar share la dheh asxaabtaada la wadaag comment ka soo bixi si aan u ogaano waxa fikradaada iyo waxa qabtaan marka qofka ugu horeeyo ila daawanaysaan ila daawada isku kaasa kaadi iska matiraano anu kaadida iska matiro haddaan dhinto jannada anaa gelaya idinkuna cadaabta gelaysaan kulligiin okay waa maqasheen kulli qofkan waxa uu leeyahay anu kaado iska matiro haddaan dhinto ani jannadan gelaya adinka cadaabta gelaysaan okay videoga halkaas aan nooga ekaado waxaan u gudbaynaa next clipka kale waa qof kale oo isagana Soomaali ah ilamaha qofkan inuu qabo telefoon uu wax isaga soo duubo laakiin dad baa ka soo duubo dhaqan xumada ka mid tahay qof daroogaysan oo koola cabsan oo inuu xanuunsan yahay laga yaabo mental sick inuu yahay in inta wax laga soo duubo TikTok looga raadsado TikTok looga raadsado magac ama ku hel likes ku hel dad badan oo asxaab ah marka qofkan kalena ila fiirsada Abdurrahman Amro adigoo xamo garojo arta muqdisho inaan u qabsan marnaha ka yaaban inaan muqdisho u qabsan waad arkaysaan qofkan xitaa sidoo uu hadlay inuu qof xanuunsan yahay marka taasna waxay ka mid tahay dhaqan xumada TikTok ee dhalinyarada Soomaalida wiilasha la soo galeen okay aan ka sii gudubno qofka kale aan gudubno clipka kale warba kugu dambeysay horta aabahay lacag u dirto هذا شنو قدام بيسو هذا لعب قدرت ana wayda maanay dash اباي دلم يعني ma ya aabahay kuma dhalin intiisa qabta هذا بويده يقول كذا قطع okay qofkan soo jeedaan waxa weeye wiil marna iska dhigayo naag marna iska dhigayo nin laba qof iska dhigayo marka diintana iyo dhaqanka kulli waxay la tahay waxaas inay ku xun tahay magac raadis kulli way la tahay waxa loo sameeyo waxay ka mid tahay dhaqan xumada nooca ugu weyn oo dhalinyarada Soomaalida wiilasha ay ku hayaan TikTok waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeena waxa way dhaqan xumada dhalinyarada Soomaaliyeed qaar kood ay ku hayaan kulligood ma kuwa aad u fiican ay jiro ayagana waa idin keen doona laakiin hadda kuwan ka hadlayno waa kuwa xun dhaqan xumada okay qofka xiga waa qof xadkiiba inuu gudbo u maleeyo anshaxa meesha laga rabay wuu gudbay qofkan dhaqan xumo waxaan dhigi karaa kuwii ugu xuma ay ka mid yahay bal isagana ila dhageysta waa qof aad u dayar waxa ku kalifa ma garan karo laakiin dhaqan xumada TikTok ka mid tahay qofkana ila dhageysta ترتيب وسعنا الله دولة قتالة انت ديك وحين توبع يا صار نك دون بعض صار قبيل كيساوي بلا يد وينك بدل معاه نك ولا لو نك بيمال وهر وسخ مع هذا بيمال مع سلام قصع خبرك تداوي على صدق بينه waad aragteen kulleeba asagana waa dhaqan xumo meesha ugu xumeed waaye waxay ka mid tahay ayagana waxyaabaha Soomaalida aadka ugu xun yihiin TikTok ay ku hayaan qaarkood Soomaali oo dhan ma aha dad badan ku jiro aniga taan ka mid ahay waa qaarkood haddana waxay la fiirsataan kilibka kale oo ku xiga waa qof
wuxuu duubanayaa dad ajnabi ah caayba afkiisa ka baxayso wax xun ah asagana bal ila fiirsada اقرأ يا أيان مش محق قبنا وشين بلا الله يدين كل شيء لا على ورتين كيان أركتي أنا إيه قدرت عبينا قال شاير الله قوايه إيش كرت waa aragteen oo maleeyaa dhibka jiro waxa way qofkan xitaa dadkii uu ka cararaya dadkii uu wax ka sheegay uu hadii ka sii cararaya macnaha waa dhaqan xumaday ka mid tahay midkan kalena waa wiil dhalinyaro asagana aad u daayar dhaqan xumo kulleebo uu ka mid yahay dadka dhaqanka xun ee TikTok ku jiro TikTok sida xalay aan videoga hore ku sheegay xumaan kaliya lagu sheegay dad lagu helo waxaa la sameeyaa wax positive ah wax dadka wax tar u leh wax dadka ay kugu dayan karaan hadaad doonto diin ha ka hadlin waxa kale oo ka hadli kartaa wax aad dadka intifaac u leh wax badan wax walba jiro intifaac u leh ka hadal dadka u sheeg dadka wax u faa'iideey waxaad noqotaa qof adiga wax un laga faa'iido laakiin qof caaydiisa iyo macnaha hadal xumo dhaqan xun I don't know waxa laga faa'iido waxa la weydiinaa nimankan dhaqanka xun marka kana ila fiirsada kal kasta mooyay qabtaa mooyay ka sana kala sawa ka shan mooyay han waa matalo weyn kasha waxa laga rabaa karoos koorna i ku dhawo joogte mooyay ana waxa mamnuuc ka man dhexir galiga ay meeray aras ka dambeeya nimanka aras ka sarurta leh umaleyn waad aragteen asagana dhaqan xumadu ka mid yahay saaxiib waxaan isleenahay next time ina fiirsata laga yaaba isa soo sax iska sax waxyaabaha aan meesha soo dhiganayso waxaan waa social media wax positive la soo dhigtaa adduunka dad waana ku hormaro waxa soo dhig marka taasi waa iga talo qofka xigo baan hadda u galina qofka xigo asagana waa qof aan isleeyahay wax dhaqan xun meesha la jooga dhaqan xumo asagana la jooga ila fiirsada hadalka yaan idinku badinin asagana ila fiirsada guri bay ila booday barbar bay isu tuudhay bawdyahay kala qaad nacala aabbahayo nimanku aqoon baa hilaac gabaabsi aad moodaa maxaan ka aqaan hilaac gabaabsi asagoo aabusaayi okay isagana waa ka dadka dhaqanka xun kulli waa ila aragteen horaaga sii soco midkaan asagana kuwa iga yaabi ka mid yahay waxyaabo waxaa jiro xadka aan looga bixin si walbo samayso wax walbo aa samayso xadka aan looga bixin kuwaan hadda midkaan aan soo macnaha fiirsan doontaan waxaa way dadka xadka ka baxay marka ila fiirsada asagana Oh hi Aden. Bla وريا. نحلي مال صور نحلي مال. اليوم بفراك قلت لي ما حضرته وراح محوها ورطوري. My other was just cursing at me. طب حاولوا غرته أعوذ بالله. هو حساس صوت مويل بقى. I can hear you. دقاها بيل قنيسي ونار بسعره. ما يهوي أذر وكل عيارية والله وسك عيار أذر. I don't care. I don't care. قبرية لوراك أنا فرته. اسفيربل. ليس قصد ودرته سيد دانيركي. I don't care. Whatever old man. Old man. ما حليمه عدي يقبل كم ما تنبه كده جايه. اسكان. ورا عنق نادف حتى أنا قلت هم عنقاني. إلى أكو داري ما واحد عنقه قبر حنا أفريتو من جربة مدة أو سكني درت الدبريشن هايسو. I'm not depressed, okay? Oh yeah, kulali, Daniel, you're sucking durtay. You can judge me all you want. I don't care. Church, kala maxkamad baa ku saaraya qaniisi looga kala furtay. Rock on, dude. waa aragteen dhaqan xumo meesha ka marayaan dadka qaar dhalinyarada qaar oo TikTok ku jiro marka waqtigo nagu gaaban darteed aan ka sii soconno qofka xiga waa kana waa dhaqan xumo kale هن لك دايو أفكان جنيو أن فاهمين رحوين أف صومالي واتقنا يا صومالي أنا ولهش إذا عديه إذا أف صومالي أقوالش هديك القبيل والبلاهجة سو والله بالله يقوالي كون برق البنا هو يهوستك لا تكتي أدينا كود ماي okay kana waa aragtaan wuxuu soo saartay meesha cod qof hore ugu jiri jiray YouTuber ahaa waxaan sheegi jiray xanuun iyo wixii ahaayeenbo hadda ka fiicnaado wixii hal laga dhaafadho wixii qofkii wataa marka wixii dhaqan xumadii codkii intii la soo duubtay waxa la sameynayaa TikTok la leeyahay dhaqan xumo okay ka soco asagana
okay meeshaana waa qof fanaan oo dhaqan xumadii kusoo darsamay fanaaniinta waxa lagu ogaa dadka inay wax fiican u sheegaan aan inkastoo aan fanaan iyo waxaas taageerin aan haysoodana dhageysanin laakiin wax xun buu qofkan fanaanka sheegayaa dhaqan xumadii TikTok ayuu soo galay video nooci ugu xumaa oo waliba encouragement lagu siinayo dad koola dhuuqo ayuu soo duubay asagana ila daawada waa fanaan dadka ay yaqaaniin aniga laftirkii aqoon waan u leeyahay macnaha waan arkaa markay ila daawada ما أقان إساق وحا كهد داد وحتو سيما كهد I don't know لكن أقان حمد TikTok أيو إساقنا ليه ماضي مارك وحان ليه هادو فيديو غان إساقنا داودو صاحب إسكاسو صح قابك TikTok wax fiican oo la soo dhigaa jirto waxyaabaha negative-ka dadka waxba uma taraan okay negative-ka dadka ay idin tusiye wax yar waxa idin tusina waxyaabaha positive-ka oo dadka ay soo dhigi karaan at least dhaqan xumada ahayn anshax xumada ahayn xadka waxa looga gudbaa ahayn wax yar ninkan waxa uu sameeynaa ila fiiriya xirfadda uu asaga leeyahay ayuu dadka la wadaagay TikTok-ga wax badan waa laga faa'iidaa marka waxyaabahan camal la soo dhigaa ila fiirsada asagana very good perfect okay ninkan wuxuu soo dhigay wax positive wax dadka wax u taraayo ayuu soo dhigay waxa fiican waxyaabaha dadka ay ka faa'iideysanayaan sida ninkan camal in loo soo dhigo waxyaabo xun xun anshax diidayo xadka looga baxay intii la soo dhigi lahaa marka dadka waxaan kula talin lahaa mar walbo inay soo dhigtaan waxyaabaha noocan dadka wax u taraayo ayaga xirfadooda ah waxa laga baran karo waxayna ku helayaan taageerayaal badan marka taas waa iga talo haddii ay ka tegi weyso oo qof shaaciro la atar rabta in lagu qoslo waxyaabo comedy ah soo dhigayso videogan ugu dambeeya idinkaga tagaa asaga fiirsada waa kii ugu dambeeyay clipkan aan dhahe asaga fiirsada waxyaabo noocaan oo very unique ah oo dadka ay wada sameeynin oo qosol badan ayagana soo dhiga marka ila daawada filinkan balkan clipkan عدوش ضرب بابا بابا عدوش ضرب بابا بابا قناص ضرب تطا تفتا قناص ضرب تطا تفتا وطبنجة ضرب ويلي ويلي وطبنجة ضرب ويلي وطبنجة ضرب ويلي وأسود كبس كبسا كبسا وأسود كبس كبسا كبسا ونمور وصل وصلا وصلا ونمور وصل وصلا اللست ولا ويلي ويلي والتاج الرجع جيجي جيجي والتاج الرجع haha waad aragteen mid aad u qosol badan oo ahaa mid shaacir oo ahaa marka wax hadaa soo dhigayso waxa la soo dhigaa dadka loo soo dhigaa u leh intifaac ama ka qosashiin karo oo xumaan iyo waxba aan ku jirin oo negative ahayn dhaqan xumada TikTok-ga dhalinyarada Soomaaliyeed iska dhaafa wax fiican soo dhigta intaas waa iga talo mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelinayaa dadka daawaday waxa idin leeyahay channelkan subscribe soo saara like saara comment ka soo bixi share la dhaha asxaabtiina la wadaaga waa anigoo ah Abdul oo idin leh maca salaama